for action on the current extreme drought situation in Somalia. This gathering was jointly organized by the Office of the President, United Nations Humanitarian United Nations, and the National Drought Response Committee. The population in Somalia is mostly rural and heavily reliant on the committee of 26 members from the federal government, federal member states, civil society, was appointed to technical and operational support scaling committee of 26 members from the federal government, federal member states, civil society, was appointed to technical and operational support scaling. The severe drought conditions are expanding and not sufficient until the arrival of Lucy in the rainy season in April through June. However, this decision also provides a new opportunity to firmly set a positive trajectory towards peaceful development. Your Excellency, colleagues and friends, an elected president after his election. Honorable Mohamed Omar Arte, Regional State Presidents, Honorable Ministers, Ambassadors, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol observed. I want to begin by extending my thanks to the President of the Federal Republic for calling for this important meeting. I also want to thank the international community for their support and encouragement that has ensured us to build a more equitable and stable Somalia. And I also want to thank for all who have taken part, international community, African Union, IGAD, AMISOM, the Somali government, for the creation of Hirshabelle State. As you are aware of, the entire Somalia is facing serious drought conditions. Since the last half of 2016, the severity has been spreading especially, and the impact was getting worse with time due to low rainfall or zero rainfall in some areas. I'm sure if we don't receive enough rainfall in the coming good season, we will further aggravate the existing drought condition. They are already facing the immediate danger of starvation. Today we must commit to working better, and together we prevent further deterioration into famine, reverse the rise in malnutrition, limit displacement and stress mitigation, and most acutely, reduce the likelihood of disease and put in place the measures to enable use to contain outbreaks. Ladies and gentlemen, and I am very much aware of the magnitude of many threats faced by my nation and my people. But there is no greater threat than famine, as its worst weapon of mass destruction, as we have seen most recently in 2012. Therefore, preventing famine should be our top priority. Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saaka waxaan sugu nimid shirkan oo ah shir madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Abdullaahi Maxamed Farmaajo uu sugu wacay si looga hadlo ama looga dhawaaqo in dalkan uu ka dhacay musiibo qaran marka la eego abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee abaaruhu wataan ee saameeyay Soomaaliya oo dhan. Taas iyo waxa kale muhiimadda kale la saarayay waxa ahayd sidii maxaa la yiraahdaa hay'adaha iyo dawladaha kala shaqeeya Soomaaliya ee kala shaqeeya dhinaca hawlaha bani'aadamnimada iyo hawlaha kale ee maxaa la yiraahdaa horumarinta intaba in la isku dayo oo lagu dardargeliyo inay wixii ay qabanayaan ay dhaqso u qabtaan. sidoo kalena warbixino ayaan kaga dhageysanay dhammaan dawlad goboleedyada dalka oo ay kaga waramayeen xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo waxyaalaha sii daran ay u baahan yihiin in lala qabto.
taasna waxay uun sii wanaajinaysaa sidii wax wada qabsiga uu hagaagi lahaa, sidii looga wada shaqayn lahaa dhammaan in laga hadlo ama wax laga qabto abaarahan maanta Soomaaliya oo dhan aafeeyey. waxa kale iyadana warbixin halkan ka bixiyey guddiga heer qaran ee abaaraha oo waxqabadkoodii intii ay qabteen iyaguna halkan ka sheegay. marka guud ahaan waxay runtii si fiican ay u dhacay. waxaan ilaahay ka baryaynaa in hawshii ay markaa halkaa ka sii socoto. waxyaalaha loo baahan yahay maanta waxa weeyaan in laga hadlo waxaynu horta qabsan karaynaa inagu haddaynu nahay Soomaali, sidee baynu aynu dardargelin karaynaa inaynu walaalaheen wax la qabanno inta aanan ka hadal cid kale inay wax noo qabato. marka taasna waxaa la rabaa dhammaan xukuumad iyo shacbi intuba inay kacaan oo iyaguna isku tiirsadaan sidii dadkooga iyo dalkooga ay wax uga qaban lahaayeen oo markaa laga samato saaro ilaahay idankii in maxaa la yidhaahdaa waxyaalaha ka soo baxayna waa taan kuu sheegay intii aan kuu sheegay weeyaan. midda labaad waxaa iyadana muhiima in doorka culimada laftoodu laga rabo inay door in xoog la ay ka qaataan hadday tahay in qunuudkii iyo roobdoontii intaba inay mar walbaba si joogtaa masaajidada looga sameeyo, in maxaa la yidhaahdaa ilaahay lagu tawakalo, dembi dhaaf, soon intaba aan samayno si ilaahay subxaana wa tacaala inoogu naxariisto oo naxariistiisa aan ku helo roobkaasoo la helo ayuunbaa ilaahay idankii ay noqonaysaa in dalkan iyo dadkan wax badan ay u qabsoomaan. wax kastoon isku dayno haddaynan taa haysan waxay noqonaysaa markaa waxaan haba yaraatee aan waxba ka jirin. marka ilaahayna aan ku tawasulno, ilaahay subxaana wa tacaala aan weydiisanno, gacmaha hoos u dhigno oon ilaahay weydiisanno har iyo habeen madax iyo shacbiba intaba aynu har iyo habeen samayno. taasaa laynooga baahan yahay biidni illaahi tacaala. taasaana wax ku heli doonaa ilaahayna subxaana wa tacaala inagu naxariisan doona. aad iyo aad baad mahadsantihin. salaam calaykum. Top priority. My people have faced many calamities, both natural and man-made, but we have been incredibly resilient. My people have been the embodiment of the famous saying of Moya Angelou, quote, "You may encounter many defeats, but you must not be defeated." In fact, it may be necessary to encounter the defeats so you can know who you are, what you can rise from, how you can still come out of it. Finally, allow me to once again express my deep appreciation for your efforts and kindness to the Somali people. Please keep up the dedication, hard work you have so excelled, and rest assured you will have my undivided attention. And to our partners, thank you for standing by Somalis in time To call for action on the current extreme drought situation in Somalia. This gathering was jointly organized by the Office of the President, the United Nations Humanitarian United Nations, and the National Drought Response Committee. The population in Somalia is mostly rural and heavily reliant on the committee of 26 members from the federal government, federal member states, civil society was appointed to technical and operational support scale committee of 26 members from the federal government, federal member states, civil society was appointed to technical and operational support scale. The severe drought conditions are expanding at no within the area of Bushi, the rainy season,